marka Abdullah nin imaam oo jabal ah oo khisaal khayr oo dhanba lagu tilmaam ayuu ahaa imaam al-muslimiin fil jihad imaam al-muslimiin fi sadaqa imaam fi al-ilm imaam fi al-fiqh imaam fi al-hadith imaam fi al-Qur'an wa at-tafsir wuxuu ahaa rajul kaamila min jami' jawanib ذهب مسير كسوء وحولي ورجل جمعت فيه خصال الخير كلها مركو سوق جبجبي او وحود او شي مقتل مربض نينك امان زاي كا بدنيسا ميلاد دغتبا مركا وحولي ورجل جمعت فيه خصال الخير كلها خير دم با لو جمعيه بو وانا ذو قيمه بدن بو وحب لي جدل 12 امام محدث والعكس ينجري مشار توس ويكمدين حمادين حماد ابن زيد يا حماد بن سلمة ايو لبيو طبن امام وفقهاء محدثين ومجالس فردي حديث كيريو لعق يحول بيها سينجري واجد دنبا ارضي اوي من مقاسو لامامه حولها دي عرضي كبتو نما القبين واها عبد الله بن مبارك حولان الهي با كشبay markaasuu yiri intan aad haysataa kugu filani shaqada iyo ganacsigan iyo beec mushtarigan iyo hawlahan ma iska daysid wuxuu haddaan culumada aanan ka baqaynin buu intay baahdaan inay boqorada u baahdaan adduunyada faraha ban ka qaadi lahaa buu laakiin waxaan u shaqeynayo caruurtayda waxaan dhalay waxa ka daran buu culumada aan biilo waxaan u biilhayaa buu mushaarku u siinhayaa waxaan ka baqi buu jawaradan iyo tawaaqida caalamka maanta joogta islaamka sheeganaysa inay wadaadu u baahdaan oon arkanin caalima muhaddith oo hortaagan boqor jaa'ir oo taaquudo gacanta u horsanay marka ayagaasan xoolaha ku bixin buu markay fidnada khalqu quraan bilaabatay oo asagoo iyadoo bilow waswasaysu iyo dhintay oo marka bilow rag badan ba ayuu la dardaarmay markuu arkay fidnada soo socota dardaarankiisii uu bixiyay dad badan baa ku badbaaday marka nin aad u qiimo badan buu ahaa masaakiinta iyo fuqarada muslimiinta wuxuu oran jiray ninkii wax iga baahda sadaqa iyo zaka iyo taakule iyo caawimad iga baahda yuusan isoo hor istaagin oo Abdullah waxba aan u baahanahay dhig waraaq soo qora soo gurigiisa jooga waraaq ku soo jirjoogsada arji ka socota min fulaan reehbal ku socota Abdullah Mubarak waxaan u baahanahay intaas oo lacag halkeeda meeshu joogan oo keenayaa buu Abdullah maxaa jira la yiri xuru waxaan diidanahay ruuxa muslimka ah markuu baryootamahay ama baahidiisa uu sheeganayo wajigiisa dulli baa ka muuqan buu waxaan diidanahay ruuxa muslimka inaan wajigiisa dulli ku arko iyo muxuu ahay waji gabax iyo xishood iyo sariigasho iyo khajil mar raba buu hawsha xanuun bay u keenaysaa muslimka asagoo sanka taagayo aziz oo muxtarama oo gurigiisa fadhiyo saaka iska quraacday codkiisa soo qorto adoomahayga ugu soo dhiibo wuxuu doona guriga lagu keenayaa laakiin uu soo hor istaago oo Abdullah oo islaantii baa umushay dhakhtarkii wax laga soo saaray lama hayo caruurtii way manqoobeen annagu xalay waxaan ahayn kanan ahayn sheekhu maxaad noo heli kartaa hawsha soo ma taqaanaa nin miskiin oo dhibban soo bariyo toon salama yaqaan waani waa xanuun ninkii iimaan la ka danqanay laakiin anagu dhibkeenu hadda waxa weey asagoo magan Allah naftiba haysanayna oo naga tag wala tuuri xagaas loo tuuri sanad ka hor waad ogtiin wixii ka dhacay Soodsi masaajidka Soodsi ma amin duhra yar wadaad nin Soomaali oo miskiin ah ka istaagay xuri waan baahanahay xalay saddex habeen oo xalay saddex ku ahay afkayga wax ma saarin xaaladu way iga xuntahay aan lay dhaaf waa wixii sibaalay galabkii buu naf baxay casarkii ma kala duway ka dareertay gaaladii baa qaaday waa la baaray waxa la gaajo u dhintay gaaladii baa qaaday waa la baaray gaajo u naf baxay baa leeyahay waa arrin xaqiiqo oo waaqac sanad ka hor taqriiban bay ka dhacday Soodsi masjid nuur bay ka dhacday markaasoo lama hayo naxariis darrada la iska ilaaliyo dadka muslimiinta masaakiinta loo danqado adduunkan saacado yar baa la joogaa waa laga tagay